بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسل يا نبي عليه الصلاة والسلام waxaan filayaa xafladan imaanshaheeda annagu waxaan u nimi tasriif iyo takriim laakiin wixii ay talo lahayd iyo wixii ay xog waran lahayd dhammaanba mas-uuliyiintii iga horreysay baa runtii tilmaantay waxay un bushaaro inoo wada tahay dhammaanteen warbixintaa layna siiyey wasaaradeennan qaaliga ah ee qaranka halbowlaha ka ahay inay wax badan waxa weeyaan ay runtii waajibaadkeedii gudatay taana waxa keena hoggaamin wanaagsan iyo wada shaqayn dhammaystiran oo runtii lagu maalo maskaxda caafimaadka qabta iyo aqoon-yahanka halkan fadhiya iyo intaynaga maqan waana idinku hambalyeynayna idinka iyo wasiirkiina oo maanta runtiina soo egmaday howlaha u qabsoomay ee qarankani uu leeyahay iyo inta idinka hiigsanaysaan ee himilooyinkiina ka mid ah dhammaanteed ba runtii waxa weeye waa idinka mahad celinayna haddii aynu u soo noqonno labada agaasime cilmi cashuur cilmi cabdiraxmaan cashuur runtii annaasu shuhadaau cala alard dadku wixii ay adduunka inta la nool yahay ka markhaati kacaan waa waxa qofka lagu qiimeeyo waxaynu leenahay markhaatigaa wanaagsanee u dhacay markhaati baynu ka nahay aniguna waxaan ka mid ahay ashkhaasta aqoonta dheeraadkaa u leh oo cilmi isagoo da-yar ayuu mas-uuliyadda qaranka iyo midda arrimaha bulshada labadaba runtii ku suntanaa intii uu shaqaynayay shaqadaa culus ee aad sheegteen in shanta lagu gaadhayo uu hayeyna wax badan buu ka qabanayay oo aan iminka qoraalka iyo qorshaha wasaaradda lagu soo darin oo ah waxqabadka bulshada ee dhammaan qaranka uu leeyahay waxaana rajaynayaa cilmi wuxuu wax badan firaaqo u heli doonaa meelo badan oo aada iyo aada looga sugayey oo qarankan uu leeyahay oo uu wakhtigiisii qaaliga ahaa uu ku bixin doono sidii uu dhaqanka u lahaa waxayna u rajaynaynaa sidii horeba loo yidhi cilmi wuxuu runtii soo maray meelaha somalilan ugu shaqooyinka culus oo dekeda berbera ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaraddan iminka aynu joogno dee wixii kalena waxaynu ugu ducaynaynaa wax ka sii wanaagsan oo qaranka uga sii culus insha allahu inuu qaban doono taana waxa weeyaan aada iyo aad waxaynu kala bogaadinaynaa dhammaanteenba warbixinta halkan laga bixiyey oo aan hubo inaan weliba halkan lagu dhammaystirin ee 3 sano aa ku qabateen wasiirka iyo agaasimuhuba hormuudka idinku ahaayeen inay tahay wax lagu ammaano oo lagu sharfo ciddii qabatay taana cilmina intaasaan ka leeyahay wasiir jamaal cabdi muuse agaasime jamaal cabdi muuse intaana waa ishaare iska qaado waxa weeye isagana runtii muddo dowra aniga wasaaraddeedii la shaqaynayey dee meel fogba ka eegi maayo waxa weeyaan walaa maan soo raacayno maanta maan imaadeen haddaan leeyahay kaa ilaahay baan ku dhaafiyey runtii waxaan leeyahay idinkaa nasiib badanoo waxa weeyaan dad wanaagsan baa tihin marka ilaahay markii horena wuxuu idiin dooray agaasimo aada iyo aada u wanaagsan iminkana wuxuu idiin keenay agaasimo aada iyo aada u wanaagsan taasina waxa weeyaan dadka wanaagsanee quluubtoodu wanaagsan tahay dee ilaahayna waa ilaashadaa marka waxaan leeyahay isagana ilaahay xilka ha kugu asturo dad wanaagsan oo aqoon-yahana baad u timi cilmina gacantaada midig ha noqdo waxa weeyaan oo insha allahu cilmi marnaba yaanu kaa fogaan
sidaad u hananaysaana adigay kuu xidhanta taana intaasaan ka oranaya runtii waxaan kaga baxayaa dad muslimiin baynu nahay meel kasta iyo mar kasta waa inaynu ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsano waxa risiq inoo qorani samadu ka qoran yahay qof saaxiibkaahi ma hayo kaama celin karo kuma siin karo waa inaad qalbiga ka aamintaa dhexdiina iyo wada shaqayntu haddaad intaa aaminsan tahay weligaa xisti iyo xasad iyo xumaani ku geli mayso ama kugu yaraanaysa waayo waxaad aaminsan tahay wax kasta oo ilaahay kuu qadaraa inaanay ku seegayn bini aadamna aanu ku siijin karayn aanu ku siin karaynin intani waa inuu ilaahay kuu dooray ama wasiir ha ahaado ama agaasimo ha ahaado ama agaasimo waaxid ha ahaado ama saaxiib ha ahaado waa uun dad waxa weeyaan ilaahay kuu dooray adigu dambi ha ka gelin adigu shakhsinimadaada ka warhay iska warhay intaa ilaahay kuu dooray ka warhay intaasna waxa weeyaan runtii waa iga dardaaran odaynimo mid kaftana waan kaga baxayaayo horta dadkoo dhan waa dhalinyaro malaanaba ugu garcad marka inamadii halkan ka hadlayay annagu waxaan isleenahay xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynahan Muuse Biixi aad iyo si laxaada ay markii uu bilaabay dhalinyarada uga bilaabay horta wasiirada ayar buu ku soo daayay agaasimo dhalinyaro abuu ku soo daayay iminkana siyaasadeena ka mid ah hablo waxa weeyaan dhalinyaro abuu doorkan wada magacaabay doqoladooda yara garka cad hada aad ma weynay waxaan isleenahay inankii yiri ninba waa agaasimaha dhalinyarada iyo nin isku ag xidhe dadada ayaa noo kaadiyo waxa weeyaan taana waxa weeyaan waa kaftan soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay waa siyaasadayada adduunyada waa qoriisu dhiib dhalinyaraduna intay shaqeynayso maskaxdooda baa laga faa'iideystaa taana runtii waxa weeyaan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa soo dhawaada. Wassalaamu calaykum.